waxaan jecelahay inaan hambalyeeyo wasaaradda khaarijiga ee Somaliland wasiirka iyo ragga kale la shaqeeya iyo wakiilada amba safiirada Somaliland waddanada qaar ka mid ah inoo jooga iyo hogaaminta madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo dhowrkii sane u dambeeyay kor u qaaday arrimaha siyaasadda dibadda ee Somaliland runtii yidiilo badan baa dadka reer Somaliland gashay muddo badan bay go'deen ku jireen oo caalamka ka xidhnaayeen maanta waxaad moodaa inay ku dhowaadeen inay beesha caalamka ka mid noqdaan waxaana rajaynayaa sanadaha soo socda Somaliland inay noqon doonto dal xora oo waddanada caalamka ka mid ah oo calanka jamhuuriyadda Somaliland laga taago jimcada qorba ka dhaxaysa haddaan u soo noqdo su'aashaada maxaa Somaliland faa'iido ugu jira tagniinka wafdiga reer jamhuuriyadda Somaliland ee Maraykanka runtii faa'iidooyin badan baa ku jira inkastoy ku xidhan tahay madaxweynaha iyo wafdigiisu iyo safiirka Somaliland u jooga Maraykanka oo nin dadaal badan siday u gorgortamaan waayo Maraykanku dan buu ka leeyahay Somaliland innaguna dan baynu ka leenahay qolo waliba danteeda sida ugu habboon ee iyaga ugu faa'iido badan ayay u soo dhigayaan wafdiga reer Somaliland waxaa loo baahan yahay inay u diyaar garoobaan waxay rabaan dhinaca kale ka rabaan sidaasoo kale wafdiga reer Somaliland ee madaxweynuhu hogaaminayo sidoo kale waxaa looga baahan yahay dhinaca kale waxay ka rabaan inay sii garan karaan amba sii malayn karaan si aanay jawaabaha su'aalaha uga imanaya aanay kidis ugu noqon faa'iidooyinka waxaa ka mid ah Maraykanku wuxuu Somaliland siin karaa dhaqaale toosa laba waxaa maalgashi ayuu Maraykanku ku samayn karaa Somaliland ganacsato badan reer Somaliland waqtiga raacay waxay la kulmayaan madaxda hogaamisa ganacsiga Maraykanka maxadkaasoo la yidhaaho American Express Institute wuxuu ku takhasusay oo daraaseeyaa ganacsigu Maraykanku la leeyahay iyo maalgashiga uu ku samayn karo caalamka intiisa kale marka maalgashina waa laga heli karaa shaqo abuur keenaya badan oo mushkiladan inagu soo noqnoqotay shaqo abuurka iyo dhalinyarada shaqada inaga dabooli karta suuqeenu ma weyna shaqo la'aantu yani laba shirkadood oo waaweyn oo maal gashada ayaa inaga badan oo shaqo la'aanteena dhan dabooli kara taasina waa faa'iido kale oo laga heli karo waxa laga heli karaa xagga amniga Maraykanku wuu danaynaya inaguna waynu danaynaynaa Somaliland waxa la iska kaashan karaa la dagaalanka argagixisada burcadbadeeda iyo cid kasta oo gobolkan amni darro kordhin karta inaguna waynu danaynaynaa Maraykankuna wuu danaynaya waxa kaloo la og yahay Somaliland inay amniga gobolka ima kaba door weyn ka qaadato
amniga Ethiopia amniga Djibouti wadannada jaarka amnigooda qayb weyn bay Soomaaliya ka mid tusaalan idin sheegaya dowladda Ethiopia waxa ka socda dagaal ahliya gudahooda ah ciidamadii joogay gobolka ciidamadii gobol meeshan ciidanka la yiraahdo Herargey divisionka la yiraahdo Herargey joogi jiray waxa loo qaaday dagaalada ka socda Ethiopia waxay ku haleynaysaa amniga mandaqada inoo dhaxaysa Ethiopia iyo Somaliland inay Somaliland doorkeeda ka qaadato amniga iyo inay ka ilaaliso argagixisada waxa kaloo faa'iido noqon karta inay Somaliland ku qanciso Mareykanka siday ula macaamili lahayd hay'adaha lacagta adduunka sida World Bank iyo IMF oo kale iyo qaar kale oo Somaliland ay u yeelato la macaamil iyo galaangal hay'adaha lacagta adduunka faa'iido kale waxay noqon kartaa oo waftigu ka dalban karaa Mareykanka iyo dhinaca kale sanduuqa la yiraahdo horumarinta Somaliland sanduuq waxa kaloo faa'iiday Somaliland safarka ka faa'iidi karta waxa kamid ah in dawladda Mareykanka laga codsado inay Somaliland galaangal ku yeelato hay'adaha lacagta adduunka sida World Bank IMF labada hay'adood oo Mareykanku saameyn xooga ku leeyahay oo codkiisa laga dhageysto faa'iido kale waxay noqon kartaa sanduuqa horumarinta Somaliland Development Fund sanduuqa waxa lacagta ku soo shuba Ingiriiska iyo xubno ka mid ah dawladaha EU-da inay Somaliland codsato Mareykanku inuu sanduuqa oo wax ku soo biiriyo iyana aad bay suuragal u tahay waana faa'iido faa'iidada ugu dambaysa ee Somaliland ka heli kartay waxa weeye xagga siyaasadda hadduu Mareykanku Somaliland si toos ah ula macaamilo waxay dhiiri gelinaysaa wadano badan oo adduunka ah oo ay ka mid tahay wadannada Afrika gaar ahaan EU amba qaar gaarba ah way ku soo dhiiri gelinaysaa in Somaliland aqoonsadaan amba la macaamilaan midka iyana aad u muhiimka ah oo aan doonay inaan dhaafin waxa weeye haddii Somaliland iyo Mareykan xiriir dhex maray waxa qasab noqonaysa in xafiis diblomaasiyadeed mission safaaraddu markay ku degdegi ma oran mayna safaarad laakiin inuu xafiis Mareykanku ku yeesho Hargeysa waa mid lagama maarmaan ah taasina waxay noqonaysaa muxuu ahaayay mid muhiim ah oo muxuu ahaayay dadkelintiisa leh marka amniga haddaan ku noqdo iskaashiga amnigu af noqon maayo sidoo amnigu sidii la doonayo ugu taabagalo waa in ciidamada amniga ee Somaliland tababar la siiyo Mareykanku siiyo inuu qalabayn casriya siiyo in xeebaha ciidanka xeebaha muxuu ahaayay qalab ay xeebta ku ilaaliyaan budcadbadeed iyo wixii la mid ah iyo tababaradooda la siiyo حتى waxa amniga hoos man kara muxuu ahaayay ciidanka qaranka marka waxa soo dhan markii la isku geeyo anu waxaan qabaa faa'iido badan baa ugu jirta Somaliland ragga waa wakiilka Mareykan amba UN-ta fadhiya ama Mareykan fadhiyana way la xiriireen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka jawaabtii Mareykanku bixiyay
oo qoraala anuu maan arag laakiin waxaan aaminsanahay markii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu tegay Addis Ababa ee dowladda Itoobiya u qaabishay sidii madaxweyne la aqoonsan yahay waddankiisa oo kale muddo yar kadib farmaajo wuxuu tegay Addis Ababa uu ka daba duulay wuxuu hordhigay cabasho ah heshiiskeenii Abiy Axmedow muu ahayn inaad Somaliland macaamisho iyo inaad soo dhaweyso in iyo Muuse Biixi loo qaabilo sidii madaxweyne jawaab kooban buu ugu jawaabay Abiy Axmed oo ah Somaliland dantayada ku jirta kamana maarano dunidana waxay ku macaamisha waa dano jawaabtii Mareykanka aanu maan arag laakiin maadaama Mareykanku danaynayo Somaliland jawaabtu siinaya waxa weeye Somaliland dantayada ku jirta saasana noo macaamilayna haddaba bulshada reer Somaliland ee gudaha iyo dibadda joogta Cabdiraxmaan maxaad ugu baaqi lahayd maadaama maalinta ka dhamaysa xukuumadda Somaliland uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadihii kala duwanaa ee soo maray Somaliland ba ay tallaabo u qaadayeen dhanka horumarka siyaasadda Somaliland maxaad ugu baaqi lahayd fariin ahaan ee la xiriira qadiyadda aqoonsi raadinta Somaliland horumarkan baryahan dambe ay qaadisay xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ee arrimaha dibadda aad bay ugu faraxsan yihiin yidiilo weyn baa gashay rajo weyn bay qabaan waxaan baan odhanaa shacabka reer Somaliland dagaalo badan bay soo galeen shacabku dagaal adag oo halgankiya oo Somaliland lagu xoreynayay ayay soo galeen dagaalkii ka adag oo Somaliland oo la burburiyay oo aanay waxba ka jirin oo hay'adaha dawladdu baaba'een iyo sidii ay u dhisi lahaayeen bay haddana dagaalkaas ay haddana galeen waa laba dagaal oo adag waxay haddana u samreen dagaalada ay soo galeen midhihoodii inay helaan ayay u samreen oy sugayeen imikana sugayaan waxay maanta u muuqdaan u filayaan waxay sugayeen iyo rajadii way muuqataa haddii intaasba ay u soo samreen hadday intaasoo dhiba u soo dhabar adeegeen dee waa dad go'aan leh oo waxigsanaya maantana way dhow yihiin halkii yaan laga hadhin oo dagaalkii wuu socdaa weli ha ka hadhina baan odhan lahaa Somaliland saasi waa mid dadka Mareykan jooga iyo North America ee jaaliyadda reer Somaliland waa dad badankoodu wax bartay waa dad jooga dhul xadaariya waa dad badankoodu dad waaweyn ba maanta inkastoo dhalinyarada ku jiraan dadka noocaasa waxba u sheegi maayo Soomaalidu waxay ku mahmaadaa nin weyn waa la diraa lama dardaaro nin weyn waa la diraa lama dardaaro idinka waa laydin diray wafdigaa u diyaar garowdeen waa sugaysaan horena waa u shaqaynayseen idin dardaari mayno waajibkiina waa garanaysaan intaasaan odhan lahaa jaaliyadda North America ee muxuu ahay madaxweynuhu martida u yahay maanta